kulan ay jaaliyada Soomaalida ee gobolada dhexe ka soo jeeda ku qabteen magaalada Pretoria ee dalkan Koonfur Afrika ayay baaq ugu direen beelo walaalaha oo diriir ku dhaxmartay gobolka Mudug. Odayaal iyo dhalinyaro ka soo jeeda beelahaas ayay baaq waxa ay u direen dagaalada Soomaaliya ka socda gaar ahaan gobolka Mudug. waxayna dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug ugu baaqeen inay ka qayb qaataan deminta colaadaha ragaadiyay. midka koonfur ka socda oo walaweyn ka socda Kismaayo midka ka socda midka Furunti Foor ka socda oo ay ku dagaalamayaan dadka walaalaha markaad bal islaamnimo iyo ka soo tagto wax kale oo dhan war qofka adu ku anfacaya ka maarantid internet halkan joogta waxaanu ka koobanahay dadka halka ka yimid waan isanfacnaa waxbaan isku tarnaa waan istaakulaynaa walaanahay meesha lagu dirirahayo taariikhdeeda waan naqaanaa aabbahay iska daa awowgay iska daa awowgaygii kale ka abkowga ahaa meeshii ay ku diriri jireen weeye welina wax naajidaa kuma kala gaarin dagaaladii soo maro ahliga ahaa waxaa ka mid ahaa madaxyago iyo dibira iyo biligta raac iyo haddii la kuu roonyo madaxya cuna iyo tuur iyo taalla gardhuub iyo siiga dheere iyo looma tuman intaasoo taariikhoodahaad og tihiin qaba seexiye maxaa lagu kala hela waxa Kismaayo galbeedkeeda ka socdo dhibaatada iyo xasuuqa ah waxa walaweyn iyo ka socda meesha la yiraahdo Daafeed waxa ka socda goboladaas dhaxa oo meesha filimkaba uu ka soo bilowday iyo isdilka ah waxa soo dhan dadka Soomaaliyeed iyo akhyaarta way ka xun tahay annagoo isku maaragtay dad walaalaha wada ah dad maaragtay isdhala ah dad ilmo adeer ah dad abti iyo adeer wiil iyo adeerkii isku ah in aan ku tirirno wax ay soo kordhinaysaa ma jiraan waxaan codsanaynaa annagoo dhaqanka gaar ahaan Pretoria labada qabiil ee ka soo jeeda meesha isku dagaalaysa in la joojiyo dagaalkaas waxaan kugu baaqaynaa dagaalka inaad joojidaan inaad wada hadashaan nabad iyo wanaagu idinku deeqaa dhulka aad wax uga heli kartaan oo nacfi looga heli karaa qaabka hadda aad ku samaynaysaan ilaahayna waa idinku caroonaya adinkuna waad ku baaba'aysaan awooyaashiin iyo aabayaashiina waa ku dhinteen waxba uga heli maysaan wax nacfiyana looga gaari maayo wax libinana ku kala gaari maysaan maanta dhulka isku dilaysaan maxaa ka baxa ma isweydiiseen walaalayaal ilaahay ka cabsada waxaan ugu baaqayaa laamaha kale amniga ee Galmudug askarta 12aad in ay arintaas ciidan degdeg ah meeshaas la geeyo ciidan isku dhaf ah la geeyo arintaas si degdeg ah wax looga qabto culimo awdiinka aqoon-yahanka ganacsatada dhammaan inay meeshaas tagaan xabad joojin la sameeyo maalin kasta wiil baa lagu aasiyaa nin dhalinyaro ah oo maanta qofka nolosha kugu anfaca Cabdulqaadir Axad dhaqan warbaahinta qaranka Pretoria.